بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد daawadayaal walaalayaal meel walba adduunka joogta waxaan kusoo dhawaataan barnaamijkeena aqoon maal maanta waxaan rabaa inaan kusoo gudbiyo system aan in muddo ah isticmaalayay systemkaasoo ku saabsan sidii nafsadaada aad u horumarin lahayd mar walba barnaamijka aqoon maal waxaan kugu soo gudbiyaa waxaan idinku soo gudbiyaa yani waxa weeye cashar ama mowduuc aan isleeyahay naftaada oo ka horumarin kartaa kor baad ugu qaadi kartaa يعني هرمر وين أيا كوسو كوردين كرتا نفتا منطقة فاميلكاga iyo society-ga dhamaan يعني وحوي إن إله سبحانه وتعالى أدونكان ونقولي wuxuu ugu talagalay in aan isaga una la xisaabtamo markaan qiyaamaha tagno marka waxa loo baahan yahay in aan anaga accountable iska dhigno inta aanan ilaahay subxaanahu wa tacaala hortagin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ayaa waxa laga wariyaa inuu yiraahday حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ورنفتين الله حسابتما أنت يعني وحاول لين الله حسابتما كهر أنت أصلا إله سبحانه وتعالى قيامه اسم إيمان والله سبحانه وتعالى إن الله حسابتما كهر مركو حلوب بهاي سيستم كانوا قاعدوا وحاول قفل بحلوب بهاي معلوم والبا إن داتا أما معلومات أسك أروروسيد هذينك أنت السيحن كهر إن أدبوك يقلن أسوق قاتد نوت بوك إن أضلع لها أبهنتهاي أتكو قرتيد أفر وحيالات afarta waxyaalood waa idin la wadaagayaa marka waa afar waxyaalood system ku saabsan oo habeen walba hadii aad iska qortid wax walba hadii aad akhrisid andan habeenka labaad iska qortid waxa way horumar weyn ayaad gaaraysaa waxa loo baahan yahay maalintaas aad soo dhaaftay yani in aad ogaatid waxyaalihii strength-gaaga ahaa oo aad ku fiicneed inaad qortid loo baahan yahay sababtoo waxyaalaha guusha ku keenay goolka ku gaarsiiyay waay iyo soo kale waxaad qoranaysaa waxyaalaha improvement-iga u baahan waxyaalaha horumarinta u baahan waxyaalaha waxa waaye weakness-ka ku tahay daciifka ku tahay aad u baahantahay inaad bedeshid marka step kood waxa waaye in aad qortid line baa dhexda ka saaraysaa warqadaada dhinacana waxa ku qoraysaa waxyaalaha aad ku fiican tahay strength-gaaga ah dhinacana waxyaalaha aad improvement-iga u baahan tahay ayaad ku qoraysaa step kood kaas waa step kalaad waxa waaye waxaad sameynaysaa su'aal ayaad isweydiinaysaa ama su'aalo u baahan tahay in aad iskaga jawaabtid nafsadaada oo naftaada u qabtid ayaad isweydiinaysaa yani waxa weeye maanta maxaan u sameyn waayay arinkaas maanta maxaa qof hebel u wici waayay maanta maxaa weeye businesskii ama mataqaan waxbarashadeedii maxaan talaabo uga qaadi waayay maanta meeqa email aan diray yani maanta buug ma akhrisay maanta waxa weeye salaada jamaacada ma ku tukatay su'aalo oo nafsadaada u qabtid aad og tahay su'aalahaas in jawaabteeda aad raadinaysid ayaad u baahan tahay step-ka labaad inaad samaysid marka step-kaas waxa waaye jawaabaheediina waa lagaaga baahan yahay sababtoo markaa su'aasha isweydiisid in aad ka fakartid jawaabteeda ayaa loo baahan yahay si aad su'aashaadii maanta aad qabtay iyo waxa aadan sameynin jawaab aad ugu heshid ayaa loo baahan yahay marka step saddexaad waxa waaye recommendation waxa weeye tala soo jeedin nafsadaada maxaa tala soo jeedin oo aad siinaysaa ayaa loo baahan inaad nafsadaada recommendation inaad bixisid oo nafsadaada aad siisid aad tiraahdo waxa waaye waxaan samee waxaan fiicnaan lahayd inaad sameysid talaabadan qaad maanta saddex mataqaana jimicsi yar baa sameysay oo 10 daqiiqo 20 daqiiqo bari samee maanta waxa weeye 2 jeer baa salaada jamaacada tukatay 4 jeer tuko ama 5 jeer tuko maanta waxa weeye 2 qof ayaad wacday 5 qof wac maanta waxa weeye hal email aad dirtay email badan dir maanta hal buug ba akhrisay 2 buug 3 buug akhri maanta hal cajalad ba dhageysatay cajalada badan dhageyso yani waxa weeye tala soo jeedin iyo recommendation ayaad bixinaysaa marka saddexdaas qodob waxa in qodobka koowaad waxaad xoog saaraysaa improvement-gaaga iyo weakness-kaaga inaad ogaatid marka improvement-ga xoog saaraysaa step-ka koowaad iyo weakness-kaaga kan labaad waxa waaye in aad su'aalo nafsadaada weydiisid oo u qabtay in macnaha wax badan aad iskaga jawaabto marka su'aalaha qaarkood waxa weeye research ay u baahan yihiin baxdi inaad gashid ayaa loo baahan yahay dad adiga ka duwan ama ka aqoon badan ama ka khibrad badan inaad weydiisid ayaa loo baahan yahay step saddexaad waa inaad nafsadaada recommendation siisid ma tala soo jeedin aad siisid yani waxa weeye mistake baa kugu dhacay mistake-gaas mar dambe ha u noqon
يعني maanta waxa waaye waxbaa kaa hoos baxay mar dambe ha sameyn waxyaalahaas. Stepka afraad waxa waaye conclusion iyo summary inaad samaysid hal sentence ama laba sentence maanta guud ahaan waxaad qabatay boqolkiiba 60 boqolkiiba 70 boqolkiiba 80 yani guul intee la eg ayaad ka gaartay. Marka qiimeyn rasmi ah oo assessment ah ayaad sameynaysaa stepka ugu dambeeya kadibna waxaad ogaanaysaa meesha maanta aad joogto nafsadaada ayaa waxa loo baahan yahay inaad grading asiisid ama inaad darajo asiisid. Marka taas waxay ku fududeynaysaa inaad ogtahay meesha u socotid, meesha aad ka imaatay, goolka aad leedahay iyo waxyaalaha aad qabatay maanta. waa 4 step oo guul weyn ku keeni karta. research badan ayaa lagu sameeyay waxaan ugu isticmaalo waaye waxaan isleeyahay waxa waaye qof walba horumar iyo guul raba nafsadiisa inuu soo hoyo waa stepyo mataqaana system la ogaaday stepyo fudud oo qofka 10 daqiiqo 15 daqiiqo ayaa laga yaabaa in mataqaana ay ka qaadato. waxa laga yaabaa sanadka markuu dhamaado markaad buugaaga fiirisid in aad xaqiiqdii la yaabtid shaqada adag ee dheer ee aad soo qabatay sanadkii oo dhan horumar weyn oo mataqaana nafsadaadana aad u keentid. Marka casharkan maanta waxaan jeclahay in aan intaas idinku soo gudbiyo casharka la midka ah intaan iskaga arkayno waxaan rabaa inaad cajiladan la wadaagtaan dadka saaxiibadiina dadka walaalihiina dadka astaqaanaan xagga social media ah saaxiibadiina oo dhan khayr badan baan idinkaga tagaya waxaan idinkaga tagaya salaanta islaamka. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.